الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ولا ليال waxaan rabaa insha Allah inaynu bilowno ama maanta aan halkan ka bilaabo silsilad insha Allah aan ku soo bandhigayo waxa weeyaan sixirka iyo hawlihiisa. walaalayaal insha Allah silsiladaasi waxay noqon doontaa silsilad waxa weeyaan dheer oo isdaba jooga insha Allah. waxaan ku soo gudbin doonaa nimanka saaxiriinta ah iyo waxa weeyaan siday ummadda u dhibaateeyeen iyo waxa weeyaan haddii Ilaahay ka dhigayo ceebahooda iyo gaalnimada iyo waxyaabaha ay ku sugan yihiin iyo qaabka ay shayaadiinta insha Allah ay ula shaqaystaan ee ay ula adeegtaan baan insha Allah soo gudbin doonaa. waxa igu kalifay inaan waxa weeyaan maanta aan ka hadlo ama waqtigan aan u arko inay munaasab tahay in insha Allah booskaasi uu bannaan yahay ummadana waxa weeyaan looga digo sharta waxa weeyaan saaxiriinta iyo waxa weeyaan insha Allah inta la shaqaysa iyo waxa weeyaan inta ku adeegatay in looga digo oo waxa weeyaan insha Allah xumaanahooda waxa weeyaan la soo bandhigo inaan insha Allah maanta ay munaasab tahay markii xanuunkaasi ummadda waxa weeyaan in badan uu ku faafay oo waxa weeyaan uu soo noqnoqday ayay insha Allah muhiim ila noqotay inaan waxa weeyaan ummadda uga digo oo waxa weeyaan insha Allah bal waxaan iyo intuu qodan yahay iyo intuu leeg yahay insha Allah aan soo bandhigo. insha Allah walaalayaal maanta darsigeena koobaad waxaynu insha Allah eegi doonaa maxaa la yiraahdaa sixir luqada carabiga marka la joogo sixir maxaa loo yaqaanaa. as-sihru fi al-lugha al-arabiyya waxa weeye عمل يقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه. سحر وحل إلى اللغة العربية مركز لتشوفه عمل لوجو دوان أيو وحويان شياطين يضو وحويان لقد ضلبيو كالمو إني وحويان كالميان كوحويان ساحرك. وقال الأزهري رحمه الله تعالى وحوليه أصل السحر سحر كأصل كيسو وحويان مركز اللغة العربية اللي تشوفه صرف شيء عن حقيقته إلى غيره. شيء اللي حيو وحقيقته اللي حيو شيء عن حقيقته سهين وحويان لو اللي حيو أي وحويان سحر اللي هذا سدا وأظهر وحويان وكذا وشي. ابن منظور وحاوليه يسوي فكأن الساحر ساحرك وحد مداويه حقيقته لما أرى الباطل مركي باطل كي وحويان وكيسيي في صورة الحق شيء حقه إنه وحويان باطل كي سيدو قرحيني إنه وحويان حق كيسي وخيل الشيء قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه شيء مركا لا قرحيو إلا وناجيو إن بدن لا أمانو إيه حقيقتي سيديبك كقرصون وحويان لا قريو أيا وحلو يقانا شيء إن حقيقتي سلق اللحيي أي صرفه واللحيي حقيقتي سبك اللحيي سوى دباتوين كي سيورنا وحويان قرناي. العرب تقول عربت وحيرن شرتي إنما سمت السحر سحرا سحر كوحا لوغو مغعابي سحر لأنه يزيل الصحة وحا او دوريا او بدلا عافماتك إلى المرض وحو كبدلا حنون iyo bukaan qofkii oo bukooda oo jirkiisa xanuunsado oo waxa weeyaan xanuuno badan ay ku soo dariyaan ayuu waxa weeyaan ku keenaabay carabtuna waxa weeyaan ay erin jireen markay luqadooda waxa weeyaan ay joogaan. walaalayaal qaala qawmun waxa weeyaan qolo kale culimada kamidna waxay yiraahdeen huwa ikhraajul baatil fi suurati al-haqq wa shay baatila oo dabeetana la qurxiyay sixirku oo dabeetana xaqa waxa weeyaan loo ekeysiyay. mu'jam al-wasiitka isagu waxa uu tilmaamayaa ma ludifa ma'khaduhu wa duqa ayuu waxa weeyaan tilmaamayaa. as-sihru sixirku waxa weeye ikhraaju shay'in wa shay oo waxa weeyaan laga soo saaro
fii axsani macaaridihi sida ugu fiican waxa weeye loo soo bandhigo oo waxa weeyaan la qurxiyo oo laga sheekeeyo in badan laga warramo oo loo qurxiyo ummadda xataa yaftina ilaa iyo waxa weeye lagu fitnoobo kaas baa waxa weeyaan luqada carabiga waxa weeyaan sixir loo yaqaano qaybta luqada haddaynu intaa insha Allah ku soo gaabsano faham guud waa laga qaadan karaa isdilaaxa sharciga ah ee waxa weeyaan diinta islaamka ay ku tilmaantay ayaynu insha Allah iyadana waxa weeyaan wax ka eegaynaa قال فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى وحوليه السحر في العرف الشرعي سحر كمرك عرف الشرعي قال له تشوفه مختص وحكو قاريهاي بكل أمر أرن كستا يخفى سببه سببتيس أي قرصانتهاي ويتخيل على غير حقيقته والله أكيسين أيو قاب آن أهين حقيقتيسي ويجري مجري التمويه والخداع يضع أمده وحويان لقو خيانين أيو وحويان khiyaano iyo dhagar waxa weeye maqaar saar loogu maaragtay maleegayo taariif waxa weeyaan aad uga dhow marka istilaaxiga sharciga ay noqoto ayaa waxa ka bixiyay imaamu ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ayaa ka bixiyay imaamka jaliilka waxa uu leeyahay sixirka markii uu urfigiisa sharciga ah ama istilaaxiga sharciga ah ee waxa weeyaan culimadu ay u yaqaanaan ee shariicada laga qaatay waxa weeyaan marka uu soo bandhigay waxa uu yiri huwa uqadun waa guntimuu yiri waa ruqan iyo waxa weeyaan tufma la tufay oo guntimaha lagu tufay wa kalaamun iyo hadal yatakallamu bihi lagu hadlay oo waxa weeyaan ka sixroolaahi kelmadu waxa weeyaan ku dhawaaqaya aw yaktubuhu ama wuu qoraya aw yacmalu shay'an ama shay buu sameynayaayo yu'thiru dabeetana raadaynaya fi badan al-masxuri qofkan waxa weeye la sixray jirkiisii ayuu waxa weeyaan raad ku sameynaya ama isbedel uu ku keenaya aw qalbihi ama qalbigiisu isbedel ku keenaya aw aqlihi ama aqligiisiba qofka bedelaya qofkii wuxuu noqonayaa qof waxa weeyaan waalan oo waxa weeyaan xidhxidhan oo la silsiladeeyo ayuu waxa weeyaan noqonaya min ghayri mubaasharatin lahu laakiin wax nabar ah oo qofka ku dhacay oo gaadhay markaad eegto waxa weeyaan ma arkaysid walahu haqiiqatun سحرك حقيقة يوليه فمنهم ما يقتل وحكمد السحرك مد وحويا دتك اللي قدله وحويا قفك وحويا القد لا يكمد وما يمرض وحكمد من قفك حنون أكينية وحويا قفك وبكون عافمات كيس يسبدله يسبدله وحويا وكوي منيه وما يأخذ الرجل عن امرأته سحرك وحكمد مد وحويا ننك لقى حريه حاسكيس فيمنعه دبتنا وحو أديديا وضعها إنه وحويا قفتي دمرها وحو أود وايا إنه تشبعه أما وحويا وقل موضح حاسكيسي حلاشة هيد أيو وحويا قفك أود وايا ومنه سحرك وحكمدا ما يفرق بين المرء والزوج من لوك لقينيو ما يفرق بين المرء والزوج مد حاسك يا وحويا ننكا لوك لقينيو ننكا يقبديس لوك لك حينيو وقرقو ده waxa weeyaan iyo guurka xalaasha ay sameysteen ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu xalaaleeyay lagu kala kaxaynayo waxa weeyaan lagu burburinayo waana maanta in badan mujtamaceena waxa weeyaan aad uga dhex muuqanaysa waxa weeyaan ummadana in badan oo kamida waxa weeyaan guryaheena ka muuqanaysa wama yubqidu ahaduhuma ila al-akhar sixirka waxa kamida mid waxa weeyaan dadka la sugu arag gelinayo oo dadka waxa weeyaan la soo caraysiinayo oo laba qof oo saaxiib aha ama laba qof oo waxa weeyaan isku wanaagsana ama laba qof oo waxa weeye shirkada ka dhaxaysay ama laba qof oo hanti isku darsaday waxa weeyaan ama laba qof oo saaxiiba lagu kala caraysiinayo oo lagu kala dilayo oo waxa weeyaan wax sabab ah oo keenaysaana aanay jirin haddana waxa weeyaan ay soo caroonayaan waxa kamida sixirka ma yuhabbabu bayna ithnayn wax ama qayb baa kamida la isku jeclaysiinaya laba qof oo waxa weeyaan iyagu iraadadooda aan isku doonaynin ama waxa weeyaan maskaxdooda aan wax jacayl isugu jirin laakiin waxa weeyaan la isku khasbayo oo shayaadiin iyo waxyaabo lamida waxa weeyaan loo adeegsanayo imaam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala markii uu taariifinayay istilaaxiga sharciga ah ee waxa weeyaan sixirka loo yaqaano ama eray bixinta sixirka markii imaam ibn al-qayyim uu ka hadlayay waxa uu yiri أن يقوم الساحر ساحر كوين كوكعو بفعل بعض المحرمات وحيابة حارانا نك السحر الله إنه سمعيه أما قال لما أو الشركيات أما وحيابة إله اللي هو الشرك سمعينه
fii muqaabali musaacadati shaytaan taasoo waxa weeyaan uu ku iibsanayo shaydaanku inuu waxa weeyaan u kaalmeeyo lahu fii maa yatlubu minhu waxaan uu ka doonayo ama ciddan uu rabo inuu ku dhibo waxa weeyaan ilaa iyo uu ama gaalnimo la yimaado ama macsi weyn uu la yimaado shaydaanku waxa weeyaan waxba uma adeegayo umana soo fadhiisanayo insha allahu qaybtaasi waa qaybta waxa weeyaan isdilaaxiga sharciga ah ee waxa weeyaan culimadu ay kaga eray bixiyeen waxa weeyaan sixirka marka insha allahu waxaan rabaa duruustan inaynu soo koobkoobno oo duruus mulakhasa aan ka dhigo si qof waliba waxa weeyaan uu fahmo dadkuna waxa weeyaan aanay ugu daalin insha allahu qaybta inta ayaynu insha allah kusoo gabagabaynayna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa la socon doontaan insha allahu qaybta labaad